ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داودياش قيبها قدرتنا كبدن مeel kasta dunida ka joogtaan kusoo dhawaada Cadmajiid Network fadlan subscribe saara channelka dadka cusub tahay like-ta iyo share-ta hay laabin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Cadmajiid Network aad baan idin salaamaya marka ugu horeysa dhammaan asxaabta ku xiran channelkayga iyo dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta dunida ka joogtaan waxaan gaar ahaan aad iyo aad runtii halkan uga duceynayaa oo maanta doonaya inaan talooyin ugu soo jeediyo ardayda fasalada 8aad iyo ardayda fasalada 4aad ee galaya imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada Jamhuuriyadda Somaliland dhammaantood waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin fududeeyo imtixaanka aad galeysaan insha Allah kulli imtixaankii rasmiga ah waa aakhir ayuu inoo haray marka waxaan oran lahaa waxba aad warwarina ardayay waayo kan anu idima baqayo oo insha Allah wad guuleysan doontaan guul baanan dhamaantiin idin wada rajeynayaa marka waxaan doonayaa talooyin ku saabsan imtixaanka ayaan doonayaa inaan dhowr talo idin kula wadaago talada koowaad aan siinaya ama talooyinka koowaad aan siinaya waxa weeye imtixaanka ka hor ama maalinta imtixaanka aad galayso imtixaanka ka hor waxyaabaha lagaga baahan yahay inaad samayso ayaan insha Allah ta'ala ugu horeyn aan ku bilaabi doono ay noqon doontaa talada koowaad aan siin doono ama talooyinka koowaad aan siin doono horta wax akhris waad soo dhameysteen baan filayaa oo arday kasta oo soo diyaar garooday waxna waad soo akhrisatay in de kasto lagu kala badan yahay qofba intuu soo akhriyi karay uu soo akhriyay taa iyada dib ugu noqon maayo oo imka ida oranayo waqtigan waxa akhriya oo wax badan akhriya oo wax weey bugaagta saadhaha laakiin taladan ku siinaya wax weey imtixaankii baad galaysaa oo hadda ayuu wax weey waqtigiisii taagan tahay maxaa kula gudboon haddaba maalinta imtixaanka aad galayso waxaan ku leeyahay salaada subax horta marka ugu horeyso goor rookac oo waxa weey salaad subax u kac adiga waliba gaar ahaan inamada jamacayna insha Allah haleeshan isku daya laba habeenkii goor raseex war habeenkii inaad goor raseexato oo goor hore wax weey aad iska seexato waa muhiim maalinta imtixaanka galayso ardayow si ay maskaxdaada u degto qofka bini'aadamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu inoo siiyay hurdadan noogu sharciyeeyay oo inuu seexano in loogu talagalay waxa weey inaan raaxo dareeno oo jirkii raaxo dareemo oo maskaxdi degto maanta dhan adigoo soo buuqsanaa wax soo akhriyay waxa weey soo fikiray haddii haddana aad saamili lagu darto tiraahdo caawo dhan soo jeediya bari baan waxa weey imtixaan galaya never wallahi billahi baalad midkeenin baan ku hadhow tolo imtixaankaad ku dhex seexani ama maskaxdaada waxa weey aad isku dhufan doontaa ama waxa weey imtixaankaad ku dhex diidi doontaa waxa weey marka ardayow horta goor iska seex oo jirkaagu nafis ha dareemo laba quraan akhriso ayado quraan si akhriso marka salaad subax tukato ayado quraan akhriso ilaahayna dambi dhaaf weydiiso saddex samee jimicsi ama si aad firfircoon u dareento ama jimicsi yar samee sidii adiga kolba day kugu haboon ee aad u sameyn karayso hadda inaan tahay way kala duwan tahay afar ka fogow hadalka aadka u faraha badan ee ku hilmaansiinaya wixii aad soo qaybtay xalay oo dhan baad wax akhriyeysay salaad subax oo dhan baad wax akhriyeysay waad soo diyaar garooday imtixaankii baad timid meeshii goobta imtixaanka timid hadda hadalkan ka bilowdo asxaabtii iyo reebelo iska waran waar sidee waar kale maxaa aad maanta dhan halkan buuq iyo qaylo saa u wado de waxa weey wax alla wax faa'iido ma jiro wax alla wixii aad soo qaybto wax laga yaabaa wax 70% inaad ilowdo shan ku quraaco cuntooyinka aad ka fudud ama waxa weey cuntooyinka ay ku badan tahay khudaarta marka aanu cuntooyinkan kula talinayo waxa kamid ah kalluunka beedka kaabashka boorashka afakaandhada khudaarta cagaaran cuntooyinka fiitamiinadu ay ku badan tahay cuntooyinka tamarta iyo energy-ga leh cuntooyinka ku dadaal marka cunto wanaagsan cuntana siiyo marka cunto fiican qaado cunto fiican maxaan ku leeyahay hadaba cuntada maxaa dadka badan waxay dadka qaar kood waxay yiraahdaan qof markuu cuntada cuno maskaxdiisii waxay ku fikiraysaa marka biology laga hadlayo dhiigii maskaxdii iyo jirkii iyo wixii oo dhan maskaxdiisii waxay ku fikiraysaa dheefshiidkii cuntada iyo waxaniyo sidaa ma waxaan uga jeedaa qofku tamar waa inaad
heli karto aad hadhow tole imtixaankii kaga shaqayn karto waxaa dhici kartaa arday baan soo quraacanaynba dabeetana imtixaanka buu gelaya maskaxdii buu ka shaqaysiiyey aada uga shaqaysiiyey dhiiggii iyo nafaqadii iyo kaydkii maskaxda jirka ku jiray oo dhan buu isticmaalay faatiskii jirkiisa ku jiray kadibna waabuu diidayaaba way dhacday arday badan bay ku dhacday oo imtixaanka ku dhex diiday oo ama nusaaciyiiba la qaadayba ama waxa weeye oo dhacay dee marka si intaas kugu dhicin ama werwer ama maskaxda ayna si fiican hadhow tolo u shaqaynin oo dhiiggaagina si fiican u shaqeeyo waa inaad cunto kugu filan oo tamar leh oo energy leh oo hadhow tole ku soo celin karta aad waxa weeye cunto waa muhiim taas isku diyaar garow imtixaanka si dhammaystiran ugu diyaar garow oo maxaad u diyaar garoobaysaa dee agabkaagii imtixaanka sii qaado sida qalinkii muxuu ahaa ID-gaagii waxyaabihii kale lagaaga baahnaa oo laftan dhammaan wax alla dareyskaaga wixii oo dhan waa inay diyaar ku ahaadaan dareyskaaga habeenkii sii dhammayso waxaaga dareyskaaga iyo wax alla wixii aad lahayd oo dhan dhammaantoodna oo lagaga baahnaayo oo dhan habeenkii sii dhigo meel sii diyaarso hadhow tole hadaydiin ID kaadhkaagana meel wanaagsan oo aad ku aamini karto oo aanu kaa lumi karin oo hadhow tole haddii ID-gaas kaa lumo dee imtixaankaaga way u dhammaatay marka ardayow ID kaadhkaagana ilaasho si fiican u xafido ama shandad ku rido ama qoorta suro oo dee xadhig adag ku xidho waxaan jeedaa wuxuu doonaa noqdo wuxuun ku xidho marka taasna waa iga talo waxaa kaloo aan tala kugu siinaya ardayow inaad horta naftaada ku kalsoonaato oo aad ogaato imtixaankan inuu yahay bandhig yar ama waxa way qiimeyn yar oo lagu qiimeynaya heerkaaga aqooneed lagu qiimeynayo haysta waqinin oo ha ka baqanin waxaan ku odhan lahaa ka fogow ama ka adkow welwelka iyo waxa weeye waxa loo yaqaano baqdinta imtixaanka hana ka fikirin waa is odhanayniyo imtixaanku waa sidan uu adag yahay waxaan ardayda waxyaabaha ku abuurmeynta badan waxaa ka mid ah cabsida waxa loo yaqaano iyo kalsooni darada marka taana ka fogaada waa talo aan ku siinayo waxaa kaloo ka mid ah talooyinka imtixaanka ka hor intaanad gelin sii ducayso aduu naftaada u ducayso waalidka ka sii ducayso hooyada ay duceedhe labadaada waalid hooyada ay aabbahaaba adiguna sidaada u sii ducayso ilaahay bari لأن إلهي وحوي عدك حكتا ما جرتك عمها وتاجو إلهه يفضل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا دعاء آخر أنت هاسي وحوي تويح عن كتجينا إذا كان كتر دونين أنت هاسي وحوي أرضي وامتحان كقر هذا ما مرة امتحان كجشو محل بهاي امتحانك وحلا يبهي كو هرتو فيرس امتحانك سوى ناكسان وراح عليه وقفيرس لابا si xeel dheer u akhri imtixaanka waxa laga doonayo iyo waxa laga rabo sida amarada imtixaanka ka horeeya marka waxba lagu oranayo waxa samee in waraaqaha tirso hadii waraaquhu state page yihiin state page ka baa lagu oran doonaa hadii 13 page yihiin ta ka baa lagu oran doonaa waa inaad tiriso oo iska hubiso ciwaanada adeer waliba ciwaanada imtixaanka si fiican iska akhri waxa laga yaabaa in lagu raahdo shanta ugu horeeyo shanun ka shaqee toban su'aalood baa lagu soo dhigi toddoba lagu oran ka shaqee saddexna iskaga tag haddaad wixii ka shaqeysa ka waran ciwaankii ba iska akhriin waa halis weeyaan hubi tirada su'aalaha lagu weydiiyey imisa lagu weydiiyey ma 10 mise 20 inaad ka wada shaqeysana iska hubi haddii ay ka hor timaado su'aal adag hadda bal u fiirso haddii su'aal adag ka hor timaado iskaga gudub ha ku sii mashquulna oran midhan ha ku dul fikir maanta oo dhan su'aalba su'aashii ka fududahay imtixaanka shaqee haye waxa kala ogaataa in la ku dadaal inaad su'aasha laga rabo ama jawaabta su'aasha lagu weydiiyay jawaabta laga raba inay tahay inaad ka jawaabto ujeedadu ay tahay laakiin ujeedadu ayna ahayn in waxa weeye aad hadal fara badan qorto kaliya waxa laga rabaa jawaab yar oo wanaagsan ka bixi laakiin hadal fara badan keento qorta wax macnaheedu soo kordhinaysa ma waqtigu ma kaadaysa ku bilow su'aalaha dhibcaha aad ka faraha badan lagu bixinayo ee aad garanayso walibana ee jilicsan su'aalba su'aasha ka dhibic badan tahay ku bilow oo ka shaqee wax badan baa hadhow ka faa'iido doonta markaad haddaba aragto ardaydii oo wada dhamaysay oo imtixaankii dhiibaysa aduu ha ka warwarin waayo waxaad ogaataa dee ma qof abaalmarin lagu siinayaa qofka ugu horeeya imtixaanka dhameeya abaalmarin buu helayaa taas la odhanayaa ma cid baa abaalmarin lagu siinaya maya
waxbaa ka warwarin marka ad waxba kaama gelin cidii baxaysa waqtiga lagu talagalay waxa weeye uun eego bes saacadaada iska sii qaado u kala qaybi waqtigaaga waxa weeye lagu weydiinayo su'aalaha lagu weydiiyo u kala qaybi marka waxa weeye taas iyaduna waxa weeye imtixaanka inaad waxa weeye iska ilaaliso waxyaabahaas marka imtixaanka gasho waxa kaloo marka aan idin raacin doonaa imtixaanka kadib marka waxa weeye aad ka shaqeyso waxyaabahan iska ilaali koow inaad ardayda sii weydiiso oo la sii sheekaysato oo imtixaankii marka ka soo baxday wax uu ka weydiiyo marka wax qoran lahaa ugu dambeyn waxaan idinku soo gabagabeynayaa dhammaantiinba imtixaanka goor hore taga goobta imtixaanka laga rabo goor hore tag haddiiba waxaad arkaysaa waxa la rabaa 7 buura wuxuu kacayaa 650 toban mir baa uga harsan ma arkaysid 10 mir maad ku quraacani maad ku diyaar garoobi ma gaarigaad ku raaci ma goobtaad ku tagi imtixaankii baad ugu sii nasani waa inaad 40 mir ama 30 mir ka hor waa inaad joogto goobta imtixaan oo naftaadu degto iyadoo degtay oo degan inta jalaskii lagu garaaxo kadib imtixaankaad saa ku gasho waxay kugu keeni kartaa inaad goor tagi weydo kow waa inaad waxyaa agabkaaga imtixaan ku galaysa inaad wax badan sii ilowdo oo mid qaar badan ID cardkooda ilaabi kartaa ilaa wax la dhigay waxa weeye degdego waxa weeye wax badan buu iyu keenaa marka waxa weeye iska ilaali goor taga goobta aad imtixaan ku galayso isla markaana ogow meeshaad ku galayso aad imtixaanka aad sii eegadinba goobtaad ku galayso aanad garanin oo subax dadka weydiiso taraagan ku qoranay waa ceebtaasina hadda intaad iskuulkaaga imka tagto weydii meeshaad ku galayso iyo meeshaad ku qorantay sii eego sii tag intaanad maalintaanad gelinba maantaba sii tag berito laga qaaday imtixaankii maanta sii tago sii eeg meesha oo sidee u eegtahay deegaankeeda iyo inaad ka heli karto goob aad dhitoole ka nusaacayn karto goob aad waxa weeye fadhiisan karto waxyaabo badan waa inaad isweydiiso ilaa nusaacaaga dhitoole haddaanad goob aanad ka nusaacaysa aanad ka helayn dee waa inaad sii qaadato marka ay noqonaysa marka goobtan iska sii sahamiyo bal sii eego sii tag meesha waxa weeye galaasaad ku qorantay sii eego meeshaad ku qorantiin eego war wax badan iska habeeya intaas waxa weeye kulay iga dardaarana inta wixii dheere aan ku sii darayana de kulay waan soo anu intii aan awoodeyda aqoontayda iyo aan way aragnimadeyda ayuu baan idinka sheegay aqoon aan saydiisi dheerayna ma aha waa waxaan kulay aan baaray waxaan soo marnay marka waxa weeye arday insha Allah khayr baan idin rajeynayaa guul baan idin rajeynayaa guuleysta diyo meel kasta dunida ka joogtaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.